gaadiid warkiis rida gabadha oo kale markii la soo marana dib ku qabtaa qofka xanuunsan markii la soo marana dib ku qabaa haweenka waxa jirta iyadoo markii ay fool qaado badaasaa marinaa waa jirta ku dhala kuwa ilmaha badda lagu tuura badda dhintaan dadka loo gala mid meel qaadan kara afku baa la yidhi gacanta iyo muqarka labadaba soo warqaba waayo gacantuna waxbay geysaan uurkana isagaa u sii daaya in dhuuntii lagu dhega ma noolaado hal qof baa u istaagay go'doonkii qarniga dhabaaqo waa waddo ku taalla gobolka bari waxay howlbowle muhiima u tahay isu socodka bulshada ku nool dhul baaxad weyn oo ka kooban 2 gobol wadada baqtarafta markan kaasiyo servicing 1900 iyo konton kabal dhis dawladda Talyaaniga markaa dhistay buurtu waxay u taallaa madaxaas waxay la gashaa raas casayr waa silsilada dheer oo silsilada liya goolis la yiraahdo wadadu kilometerkeedu waxa weeye konton deegaanada waxa isku xidhaa degmada Alla iyo Qandala oo saaso isku shuban ufayn iyo Soomaaliya inta kale wadadu waxay wadooyinka ka duwan tahay waxa isticmaala xoolaha nool geela iyo ariga iyo awrta la horto iyo kuwa meydkiisa sida iyo jeediga inta waa isticmaala markay goodo ka go'ayso baabuurta kaliya dawladii Soomaaliya markay sii dhaceysay ayay wadada burburay markii garaash bargana iska taagay oo fadhigiisu ahaa qarno oo tagi jiray labada xilli roobaad intaa wixii ka dambeeyay waxa xaalad adag ay la soo diristay bulshadii wadadaasi isticmaali jiray waxayna ka go'doomeen qaybaha kale ee wadanka wadadu saameyn ku yeelatay xoolihii noolaa oo ka mid yihiin gaadiidkii aadayay naqa aadayay iyo tii wax shidayba waxay kala saameyn ku yeelatay gaadiid baabuurta marka laga gudbo gaadiidka baabuurta laga gudbo badda dadkii marahayay xilliga baddu kacdo waxa ku dhintay dad haba ugu daraatay nin iyo reerkiisii inaan la arag xaaskiisii ciyaalkiisii waxa kaleeto oo ay khasaaro weyn ku yeelataa markay furanto xataa baddu xoolaha la saaro laashka gama yaryar baa lagu safraa markay u yaraato afar meelood meel baa qoyda markay u yaraato waa dhul aad khayraad u badan oo cajiiba waxa ka mid ah dhuxul dhagaxdii waxa ka mid ah timirtii waxa ka mid ah badii xoolihii dhaqaalaha koowaad waa xoolaha dhaqaalaha labaad waa maydiga iyo dayada buurahaasi waxay ku fadhiyaan ilaa 200 kilomitir waxa weeye oo dayadaasi iyo xabagtaasi ay ka dhacayso dad baa gura wadooyinkii baa go'ay kuwa waxa lagu soo qaadan la waayey kuwa waxa meel wixii laga soo qaado oo soo gooyay dadka laga soo gooyay meeshii la soo marin lahaa baa la waayey dhibaatooyinka bulshada ee ka dhashay burburkii wadada Dhabaaqa waxa ka danqaday hal qof waxaana uu istaagay hal qof in dib loo dayactiro wadadaas wuxuuna madaxa saartay culays weyn oo aan hal qof qaadi karin xilliga aan bilaabnay 1997 dadku marka hore waxay qabeen in cid wax heshiisay oo aan xoolo aan lahayn aan ku bilaabo wadada markii dambeetana weekeen ana cid macnaha wax ka helay in jirin waxay ugu qiyaaseen min nabadar ah markii dambeetana waxay yiraahdeen waa waalan yahay anigana wadada waan balaaday meel aan ka noqdana waa garan waayay hada tamam noqon karo way higsiga wax ku xiray si wadadaas u dhamaato ama dadka isticmaala ninka target ku leeyahay waa inuu gaaraa anigu wali targetka la hadan daba jooga inkastoo aanu higsanayay markaa
aan lahaa markii ugu horreysay dad baa tabar xasanaysa ama dawlad baa macnaha waxa weeye imanaysa waa jira caqabadaha badan oo ila soo kordnay dawladda waxaan tegay ilaa baarlamaanka oo documentiskeedii aan macnaha u yaal gudoomiye baarlamaanka markaa xilligaa joogay waa Xuseen Darbe waa joogaa documentis naasha waxay soo qiimeysay dawladda Cabdullaahi Soo soo qiimeeyay buugeedan hayaa hadda waa soo qiimeeyay mar dhaxlaasa marna ma hirgelin in wadada ay hayso dhaqaale ku filan ama cid macnaha meel dawladda sameyn jirtay oo dawladda dhistay dawladina qaban jirtay oo xilliga hore labada xilligaadkii ka jireen garaash burgaran labada xilligaad ay jireen qof shacab ah oo markaas aan meel dheer ahayn dakhli badan oo soo galay markaasna la arag dadka ku qorxay waa garanaysaa qalabka aan isticmaalayno horta marka tools ay noqoto qalabka waxay isticmaalayeen garweyno iyo badiilo dhinaca meelada waxay isticmaali jireen dab wax la yiraahdo ama qoraal lagu shido ama taayir lagu shido dhagaxa markii aan shidno ayaanu wax u isticmaalay inaan biyo ku shubo si uu jajabo dantuna iyada ku badha waxaantu iyada danta ku badha macnaha shaqada aad qabanayso waa ku baraysa iyo dadaalka aad u marayso dhinaca kaleeto oo wax way taageerada dhalinyarada xijistada qarka joogta iyo rag aan ka qaatay lacag amaaha oo ilaa iyo iminka weli leh kulli ugu jiraanin waxa marka aan macnaha taageerada ay macnaha dadka waxa ugu badan oo dhaqaaluhu naga soo gal jiro marka taageerada dadka leeyahay xijiga waxay oo macnaha wax ka helay xajir WFP oo dadka macnaha shaqeynaya marmar waxay siisay raashin cunaan oo ah mar iyo laba waa mar macnaha waxan badnay sanadkiiba ama labadii sano shantii sanado mar inay wuxuu nasiiso saacadaha sanadkii waxa isku jiray inaan 3 bilood shaqeyno 2 bilood iyo bar shaqeyno bil iyo bar shaqeyno oo xilliga qaboobaha ah waayo meeshan xilliga shaqada laga qaban karo waa xilliga bilaha qaboobaha waa hadii kuleel gaadho meeshii maalin lagu dhameyn lahaa waxay ku qaadanaysaa 10 beri waayo kuleel baa jira haraad baa jira dhibaato baa jira biyo badanaya taqriiban badanaya qaboobaha ku gaadho dib u furista wadadan wuxuu ka dhaxlay in lagu yeesho deymo badan wuxuu u horay hantidiisii gaarka ahaa si ay dadku u helaan wado noloshooda u sahasha dadkan muddaanu ka shaqeynay ninkan gacanta waxa ku hayay Maxamed Jaamac haddana isoo ku ogeyn muddo wax ka qabanay marba dad baa macnaha helay mar uu ku deemoobay wada duruuftii baa sidoo rabay bay duruuftu gaar weyn soo ku deemoobay macnaha nana macnaha oga dhaqaale darro heshay waxaan qabaa hanti badan oo isagu leeyahay iyo fursad badan oo leeyahay iyo muruq badan oo leeyahay inuu geliyo baan maqashoona waxaan maqashoona inuu ku qabo hanti badan oo wadada wax kaga qabtay oo ku baneeyay hadda inuu qabo baan maqashoona iyadoo ay sidaa tahay waxa telefoon oo farkama qodna hantida meesha iga gashay way farbadan tahay anigana waxa jira rag marka aan isku leedahay ama iga hanti yaraa oo maanta iyagu macnaha hanti haysta oo macnaha commercial ka ah laakiin kama xumay oo faraxsanahay sababtoo waxa weeye dalkay iyo dadkay wax u qabtay waa wax ii horeeya oo insha Allah la heli doono waxaan amaanaya u duceynaya xurmad leh doomiye Maxamed Jaamac Tawax oo isagu markasta gacanta ku haya wadadaas oo ay laantiis cidmaysa mareenba haddaan isagu gacanta ku hayn oo markasta baan la gubahayn oo dhagaxi ka soo baxay oo duminahayn oo dhagax cid meesha maraysa oo dhagax ka qaadahayn maba suurta gashan cid mardo waxaan u hambalyeeynaya gudoomiyaha jidka Maxamed Jaamac Tawax oo aan leenahay hambalyo ilaahay adduunka aakhirada ajra ka siiyo Maxamed Jaamac shaqadan mutadawacnimada wuxuu ku mutaysay 14 shahaado sharaf waxaana siiyay dhammaan dawladihii soo maray Puntland dhanka hay'adaha waxa ka siiyay hay'adda African 70 UNICEF WFP hay'adda BHA iyo waliba hay'ado kale kula African 70 oo muddo iskuul ka sameeyay degmada Cadoola iyo qantara ka sameeyay ayaa nin ka shaqeeya oo hataan ii yeeray
tuulada ceelgaal intuu yimi waxa weeye odayaasha deegaanka la hadlay oo ninkan xagga sameynaya xagee jira waxa la yiraahdaa boosaas jira 25 bishii ii ballamay yiri taar telefon ma jirin taar baa laga soo hadlay waa u tagay su-aashii ugu horreysay uu weydiiyey waxay ahayd wadada ayaa ku diray anaa isu daybaanay su-aalihii weydiiyey waxaa kamid ahaa dhaqaale ma heshaa dhaqaale ma ku siisaa mayaan idhi isbaaran baa dhigato yiri waxa isbaar dhulkay kama jiro wala dhiganayo goor ma helaysaa lacagta ka baxay iyo hantida ka baxay xilliga helaysaa xilligii Soomaaliya dawladda ka dhaqto waa marka macnaha targetka marka warkay anaan targetkaygu dheer yahay aqoontaydii weydiiyey intii markaan uga jawaabana kabacdi waxaan ku siinayaa warka shahaadadii way siiyey waan qaatay kuwa kale tan waan qaatay kuwaas u tagbiyay waan qaatay marka arrintaas ninkaas uu weydiiyey ayaa igu adkayd ku dhawaad 20 sano waxa socday dayactirka wadada dhabaaqo oo isu xilqaamay Maxamed Jaamac waxa ka hor istaaga mar walba dhamaystirka wadadan roobabka sanadlaha ah ee daa wadada ballaceedu waa 2 mitir 3 mitir ilaa inta u dhaxaysa inta hadda la maro markii la fuulayo dalcadahan waxa kor loo baxaa 914 foot baa kor loo baxaa gaarigu saas u fuulaya waa gaari four wheel waxa aan fuuli karo traction iska waxa weeye meel god ah iyo meel dhagax ah weeye marka gaarigu dib uu kala kulmaya iyo dadka saaranba 23 maxaa jaamac wax baa sameeyay 27 kale buu taag waay guud ahaan wadada 50 kilomitir weeye 23 waxba laga qabqabtay wax sii jiray laakiin maaha inta buuraleyda waa wax laga qaban oo baahideedu taagan tahay waa 27 kilomitir meelaha marka ugu daran oo caqabadaha balada ka jiraan waxa weeye inta dalcada laga fuulo markii durba loo socdo wax haba yaraatee gaadiida oo isticmaalaha deer baabuur yar mooyee ma jiraan marka 27 kilomitir baa gurmad u baahan qaybta yar ee hadda laga isticmaalo wadadan ayaa qarka u saaran inay burburto taasina waxay go'doominaysaa malaayiin qof oo ku nool deegaanadaas haddaba si dadkaas noloshooda loo badbaadiyo ayna horumarka ula qaybsadaan gobollada kale ee dalka muxuu yahay xalka kama dambaysta ah ee wadadan laga gaari karo xalka kama dambaysta oo wadadan waxa weeye inta loo istaago in wadadaas wax laga qabto la dhiso waxa loo sameyn karaa maadaama horta ballicii wadadii uu yar yahay hadeer oo aan waxba isku dhaaf karin in dhinaca buurta xiga waa qodmi karaa dhulkan inta la qodo la ballaari meel gaadiid isku dhaaf karo iyo dunyada iyo dadkuba balliceeda laga dhigo haddii ballicii la ballaariyo waxaan waa qar marna aad fuulaysid oo dalcada mar walba biyihii maaro looga helmayo waa soo dumayaa meelna waa daadeg oo biyihii waa raacayaan waa qalayaan wadadii waa goynayaan xal marka anigu khibradayda markaan la tashaday waayo aragnimo iyo wadooyin hore aan soo sameynay intaba oo aan ka qayb qaatay oo aan sameynay meelahaas dalcadaha ugu daran oo mar walba joogtada ah haddii loo helo qarash ama dakhli lagu sameeyo waa in laga dhigaa concrete laga dhigo dalcadahaas midna kuwana laga dhigayo kuwana la fuulayo iyo toog waaweyn oo ku dhex jira intaba 20 sano oo uu ku guda jiray dhismaha wadada Dhabaaqa oo uu soo dhabar adeegay maanta waxa la joogaa xilligii la garab gali lahaa waxa Maxamed Jaamac kula taliyay maadaama wadadii kaligiisa hagaajin karin inuu u bandhigo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto bala saxaafadda dadka dhaqaalaha rabisiiyey cuqaasha ganacsatada inuu yacnaha u bandhigo uu sameeyo yacnaha hay'ad si wadadii waxqabadkeedu uu ballaarto maadaama dhaqaalaha intaa leeg ama ganacsiga intaa leeg oo muhiimka ahi uu yaallo gobolkii isimada iyo dadka deegaanka ayaa codsaday
in waddada dhismaheeda laga wada qayb qaato. waddadaasi dhib badan baa lagu qabaa, qofkii maray baa ka sheekeyn kara iyo dhibaatada ka soo arkay. dadaal badan iyo jihdi badan oo ku bixiyey gudoomiye maxamed jaamac tawax waan aragnay waxqabadkiisa. hal qof uu noqday iyo intuu shaqayn lahaa waa qabtay. dhulka xanuunkaa leh baan waxaanu codsanaynaa anoo ku hadlay magaca bulshada reer Puntland gobolka bari iyo Galdafoy. waxaan codsanaynaa in gacan la siiyo, gacan waliba dhow oo degdeg ah. jawaab aan u baahannahay, dadkii waa kala xiran yahay, dalkii waa kala xiran yahay. waxaan u baahannahay ilaahay subxaanahu watacaala kaalmo weydiisan, laakiin cid kasta oo ka dhaqmanaysa deegaankaas waxa weeye inay gacan noo fidiyaan oo deegaanka kala xiran iyo bulshada kala xiran oo ganacsigu ka xiran yahay oo caafimaad ka xiran yahay barashada ka xiran yahay oo socodku dhibaato ku qaba. baan rabnaa in gacan ka geysto. halkaa waxaa laga qabtay haddaad tihiin dad islaam ah oo wadaniyiin aad tihiin oo waxaan u sheegaynaa dadkiina mas-uuliyiinta iyo maaragtay maanta maamulka aysaanu sheegayn haddaydinaa wax ka qaban waa idin dacweynayna, ilaahay baa idinku dacweynaya. jidkaas oo muhiimada lafdhabarka halbowlihii bari iyo Galdafoy gobolada bari oo dhan ah waxaa doonay meel kasta waxaa lagu bixiyaa. waxaan rabnaa oo codsanaynaa annaga oo deegaankiya in gurmad lagu galo oo jidka xooga la saaro oo ninkaas keligiisa garab la siiyo, waddada la furo. lagu dhiban yahay dad iyo dunya ku dhiban tahay. codsigaasaan u soo jeedinayna ummadda, hay-adaha kala duwan, dawladda, xildhibaanada, golaha wasiirada, golaha baarlamaanka, dhammaan madaxweynaha, dhammaan ayaanu u codsanaynaa, codsigaa usoo jeedinay. iyo ganacsatada deeqda bixiya oo ilaahay hadida siiyey oo ugu fiican oo sadaqada jaariya oo ugu fiican wax lagu baxsado jidka ay ka mid tahay. waddada Dhabbaaqa oo halbowle u ah meelo badan oo ka mid ah gobolka Galdafoy oo la mari jiray oo maantay aan gawaari mari karin. waddadaasu aad iyo aad baa dadku ay ugu dhiban yihiin. waxa way waxayna u baahan tahay waxqabad aad u weyn. waddadaa waxaa ka shaqayn jiray oo naf iyo maalba u horay nin la yiraahdo maxamed jaamac tawax una awood waayo maanta inuu wax ka geysto maadaama uu wax badan dadaalkeeda muujiyey oo aanu helin taabtiro la taaban karo. maanta waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka ah Puntland wixii garanaya in wax loo geysto aakhiro, in wax la geysto wixii garanaya oo awoodi kara inay waddadaas il gaar ku fiiriyaan, dhaqaale ku bixiyaan, ilaahay dartii wax u bixiyaan. Puntland oo 18 sano jirsatay ceeb bay ku tahay in goboladeedii qaar ka mid ah ay noqdaan gaariwa. marka dadka reer Puntland waxaan ka codsanaynaa in waddadaas dhammaan meel walba ay joogaan loo wada istaago. runtii waxa oran karaa madaxweynuhu markii uu talada qabsaday oo xafiiska la wareegay wuxuu ku dhawaaqay isku tashi in dadka reer Puntland ay isku tashadaan. marka si isku tashigaas uu noqdo isku tashi sax in dadku meel walba ay joogaan laga wada qayb qaato waddadaas si dadka loogu furo waddada ka xiran. wadadan Dhabbaaqa oo ah waddo runtii qadiimiya oo waqti dheer runtii la mari jiray. haddana aad iyo aad isugu howlay maxamed jaamac tawax oo muwaadin runtii isaga keligiis isu xilsaaray isaga iyo raggii la shaqeynaya oo waddada waxbadan ka qabtaan. runtii aad iyo aad baan u dhiirigelinayaa. dhammaan waddooyinkaas oo dhan waxay nooga baahan yihiin in aynu wadajir qof waliba wuxuu heli karo uu ku bixiyo waqtigiisa, maalkiisa, gaar ahaan dadka muxsiniinta oo khayrka jecel arrinkaas ay ku bixiyaan wixii ay heli karaan. xukuumadduna walba wada dhiirigelinaysa haddana inay insha allah barnaamijkeeda iyo qorshaheeda sideedii si ka badan bay sii wado. ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogta waxaa leeyahay gacmaha la isqabsado, nabadgelyada in laga shaqeeyo. wax badan bay aragnay haddaynu wax ku bixino khayrka in ilaahay inoo tabanjibaarayo. tacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala al-ithmi wal-cudwaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu tawfiiqdeena waafajiyo kuwa wadankooda fahma oo ka shaqeeyan ilaahay naga dhigo.
maxamed jaamac togox waa tusaale nool oo caddaynaya in qof kasta uu awoodo inuu wax qabto bulshadana meel uga soo baxo garowsadana in mas-uuliyad saaran tahay madaxweynaha waxaa qabsanaya golaha wasiirada inuu wasiirada la xisaabtamo maxaa qabtay wasiirku la xisaabtamo agaasimaashiisa maxaa qabtay ninba inuu nin la xisaabtamo anigu in la xisaabtamo jecel waxba leeyma dhiimin mushaar ma qaato gaadiid layma siin waxbaan doonayaa waxbaan qabanayaa aniga kaliya wax qabsan maayo dantu baan qabanaya in layla xisaabtamo maxaa waxay ku fiirsan leeyahay hawlaha sanadka intaad soo gasho maxaa ku qaatay raalli baan ka way in la xisaabtamo ma raba